بسم الله الرحمن الرحيم. marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan salaamo labada guddoon ee golaha shacabka iyo golaha aqalka sare. waxa kale oo aan jeclahay inaan salaamo ku-xigeenada labada aqal, golaha shacabka iyo golaha aqalka sare. waxa kale oo aan salaamayo xildhibaanada sharafta leh iyo senatorska halkan jooga iyo dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan marka ugu horeysa jeclahay inaan u tahniyadeeyo baarlamaankan cusub oo aan rajeynayo in madaxweynaha mustaqbalka iyo ku si wanaagsan u wada shaqayn doonaan. sidaad ka warqabtaan, waddankeena dhibaatooyin waaweyn baa hortaagan oo ragaadiyey. waxaan rajeynayaa in doorka baarlamaanku uu ka ciyaarayo xukuumadda cusub oo ah kor joogtayntay ku leeyihiin shaqada xukuumadda aan aad u soo dhoweyn doono. waxa muhiimadda koowaad aan siin doonaa oo kor u qaadi doonaa xuquuqda ay leeyihiin shaqaalaha dowladda iyo baarlamaanku. saaad ka warqabtaan dadka Soomaaliyeed, waddankeenna markii laga soo bilaabo xukuumaddiina lagu yegleelay Carta sanadkii 2000, waxa maanta ka soo wareegay 22 sannadood baa ka soo wareegay. 22kaas sannadood arrimo waaweyn oo dhibaatooyin waaweyn baa waddankeenna ragaadiyey, laakiin shanta ugu waaweyn oo Soomaaliya oo dhan og tahay oo ay ka warqabtaa waa 5 dhibaatooyin oo ilaa hadda wax macnalo oo aad odhan kartid wax la taaban karo oo horumara lagama samaynin. dadka Soomaaliyeedna waa ogyihiin waxay yihiin. waan si kooban baan u kormaraya. ta ugu horeysa waad ogtihiin oo waddankeenna amni darra ka jirta. amni hadduuna jirinna wax kasta amnigay ka soo farcama. ta labaad, waddankeenna cadaalad darre baa ka jirta weyn iyo garsoor aanan madax bannaaneen loona sineen. ta saddexaad, waddankeenna waxaa ka jirta shaqo la'aan xoog leh iyo saboolnimo aad u baahsan. ta afaraad, waddankeenna ummadda Soomaaliyeed baa ah dadka milkilaha waddanka Soomaaliyeed waa shacbiga Soomaaliyeed. ummadda Soomaaliyeed hangool baa loogaga hayaa nidaamka la yidhaaho 4.5 ku salaysan ama la yidhaaho doorashada dadban. Soomaali boqolkiiba 99 iyo wax ka badan bannaankay ka joogaan waddankeenna aayihiisa taladiisa. waxay daawanayaan waa sidii ku jirto ay daawanayaan. nidaamkaasina wax shaqayn kara maaha. 22 sannadood baan sidaa ku jirnay, waddankani wuxuu xamili kara maaha. ta ugu dambaysa oo arrinta iyaduna aad iyo aad waddankan u ragaadisay, waddankan xisaab la'aan iyo daahfur la'aan iyo musuq baxsan baa ka jira. 5taas arrimood waa waxa waddankeenna ragaadiyey oo meesha aan taagannahayna geeyey. su-aasha isweydiinta leh waxa weeyaan, 22 sano waxaan haysanay 5 dowladood bayna soo martay. 3 ka mida waa dowlado ku-meel gaadha bay ahaayeen iyo 2 dowladood oo joogta. marka dad kala duwan baa xukuumadahaas oo dhan soo hoggaamiyey. su-aashu waxa weeyaan, maxay ku dhacday intaasoo qof oo kala duwan in ay weli arrimaha gaamuray oo ragaadiya waddankeena wax ka qaban waayeen? anigu arrintaa markaan eegay, waxa weeyaan 2 kelmadood oo quraan ku sifeyn karaa waxa 5taas maamulood ay waddankan arrimihii wax looga baahnaa inay ka qabtaan. arrintaas waa 2 kelmadood. waxa weeyaan hoggaan xumo. waddankan godka uu ku jiro waxa geliyey waa hoggaan xumo. marka aan leeyahay hoggaan xumo, macnaheedu waa maxay? hoggaan xumo waxaan ula jeedaa macnaheedu waxa weeyaan madaxdii waddankaas soo martay mar allaaliya markay ku fadhiisteen kursigii waddanka taladiisii ahaa, subaxa ku xiga waxa ay bilaabaan sidee baa aniga dib laygu soo doortaa. marka dib u doorashadaadu waa damac siyaasadeed oo shakhsi ku adiga. waxaad u dhaaratay waddankan inaad danta qaranka aad hormarisid,
aad ka horraysid dantaada adiga shakhsiga oo kuwa damacaaga siyaasadeed damacaa siyaasadeed waxyaalo badan oo ah arrimahan idii sheegayay oo shantii dhibaatooyinaan idii sheegayey wax ka qabashadoodii bay runtii caqabad weyn ku noqotay marka aad ka fakaraysa in lagu soo doorto oo aad istiraahid garsoorkii wax ka qabo ama maxkamaddii dastuuriga dhis waxaa lagu odhanayaa oo maxaad u dhisaysaa maxkamad dastuuriga adigeeba sharciga ku qaadaysaa haddii aad sharciga jabiside oo maxkamad dastuuriga aad isku dhisaysa marka damcii siyaasadeed iyo waxa iska hor imaanaya waxa dadka wax u qaban lahayd waxay ahayd maxkamad waxay ahayd also in aad hal qof hal cod waa waxa ku qoran dastuurka ku-meelgaarka ah waa ku qeexan tahay in labadii dowladood ugu dambaysay oo aad tii joogta lahayd inay hal qof hal cod ay gaadhsiiyaan in maxkamad dastuuriya sameeyaan arrimahaasoo dhan labadii dowladood ugu dambaysay ay ugu qordheen maaragtay inay waajib ku ahayd waa ku guuldaraysteen waxbana kama qaban waxa kale oo iyadana waddankeenna dib weyn u keentay in ciidamadii waddanka iyo amnigiisii oo dhan siyaasad laga dhigay oo la siyaasadeeyey si loo sii joogo ama xukunka loogu sii joogo waxaa kaloo loo isticmaalaa dhaqaalihii waddanka u lahaa mid waddanka dakhligii ka soo galay ama hadday noqoto dhaqaalihii mucaawanada ee dunideena siisay arrimahaasoo dhanna meeshii amnigoo kale lagu dhisi lahaa dhaqaale amnigu dhisidiisu waa dhaqaale marka taasna waxay keentay in loo isticmaalo si xukunkaa dib loogu soo doorto iyo damac siyaasadeed waxay keentay inay musuqa sii baahiso marka arrimahaasoo dhan waa arrimaha inagu soo noqnoqday soomaaliya ma xamili kartaa 20 sannadood oo dambe oo ah dowlad ku-meel gaar ah oo dowlad waxaan u jeedaa aanan fulin hawlihii loogu talagalay oo dhan oo ku dhisan doorasho dadban waddankani ma xamili karo doorasho dadban 20 sannadood oo ku dhow waddankeennu hadda qarka wuxuu u saaran yahay burbur buu u saaran yahay doorashadii dadbadeena ugu dambaysana waa ogtigi marka waxaasi wuxuu waddankani maaragtay xamili kara maaha waxaa loo baahan yahay shaqada hawsha hoggaanka waddanka iyo madaxweynuhu waxay u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay waxay u baahan tahay waayo aragnimo bay u baahan tahay waxay u baahan tahay karti bay u baahan tahay iyo daacadnimo afartaas baan u arkaa inay muhiim u yihiin si hoggaan daacad oo waddankeenna ka saara dhibaatada uu ku jiro waxa weeyaan sifooyinkaas dadka u tartamaya shaqada madaxweynaha waxay ahayd dunida oo dhan sida la maro dariiq baa la maraa oo muddo la eego oo saxaafiyiinta hadday noqoto dadku ay eegaan dadka tartamaya maxay yihiin maxay soo qabteen taariikhdoodu maxay tahay waxaasoo dhan hadda mayna samaynin saad ka warqabtaan innanka doorashadan socota doorashadii waynagu dheeraatay markay dheeraatayna deg baan u qabannay taasina markaa waxay mayna siinin fursad ummadda soomaaliyeed ku ogaadaan yay yihiin dadka raba inay waddankan hoggaamiyaan anigu waxaan aaminsanahay inaan leeyahay sifooyinkii iyo kartidii waddankan looga saari lahaa dhibaatooyinka uu ku jiro haddaan in yar iniga warrabo anigu qofkaan ahay iyo waxaan soo qabtay iyo taariikhdayda haddaan ugu soo bilaabo anigu xukuumaddii hadda wakhtigeedu dhammaaday bilagoodii wasiir baan ka ahaa waxaan ahaa wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda waxa kaloo aan hayo xil kaloo isaguna muhiim ah oo ahaa guddiga dhaqaalaha oo 12 wasaaradood ka kooban xoghayntiisa iyo hoggaankiisa baan ahaa oo dhaqaalaha waddankan hoggaankiisa baa 18 bilood oo 6 maaragtay hal sano iyo bar aan dowladda ku jiray saad ka warqabtaan anigu waxyaalahan intaan dowladda ku jiray sifo looga qaadan karo ama kartidayda ama waxaan qaban karo waddankeennu saaad u ogtihiin waxa weeyaan baddeenna aan leenahay sharci darro kalluumaysiba oo weyn oo baahsan baa ka jirta waxa lagu qiyaasay ma hayno ma ogtay tiro saxa laakiin qiyaas dad badan oo khubaro ah markay eegeen 600 milyan oo dollar baa ina laga xadaa sanad kasta kalluunka sharci darradayna looga xado waddankeena anigu markii aan wasiirka noqday waan ogaaday xaaladii waddanka heshiisyaan hore u saxeexnay oo ururka la yidhaaho FOA oo ka mid ah maaragtay qaramada midoobay
waxa aan inoo ogolaatay inaan qaban karno maraakiib badan oo sharci darraa waddankeenna maaragtay uga kalluumaysata waxaan qabtay dhowr markab oo markii dambena maraakiibtaas lagu qaaday maxkamad la saaray lacagtii dakhligiina ummadda soomaaliyeed loo soo qabtay waxaa kaloo aan door weyn ka ciyaaray oo ahaa deyn cafiska waddankan oo labadii qaybood ugu waaweynaa aniga wasiir beyle aan u tegi jiray hay-adda qaramada hay-adda IMF-ta ee sanduuqa lacagta ee dunida taana waxaan runtii ka qabanay wax weyn ta kale oo aan anigu intaan dowladda ku jirta aan qabtay waxaa ka mid a in aan wada heshiis wada galay 5 maamul goboleed ee waddanka khayraadka waddanka waxa wada leh maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka markaana heshiiskii hadda waddanka u yaallo oo shatiyada kalluumaysiga lagu bixiyo waa heshiiskan anigu keenay oo maaragtay kalsoonida helay 5 maamul goboleed taasna waxay ku caddeynaysaa inaan awood leeyahay inaan madaxda waddankan ee kala duwan aan midayn karno isla markaana kalsooni ka heli karno arrimahaasoo dhan waxay u aragtay sifooyin aan anigu ku qaban karo runtii waddanka wax looga qaban karo marka iyadoo kooban barnaamijka siyaasadda iyada haddaan si dhaqsa ay nii kormaro amnigu waa muhiim weeyaan waxaan aaminsanahay ta ugu muhiimsan in tababarkii iyo qalabka ciidanka u baahnaa la siiyo waxaa kaloo muhiima in ciidanka siyaasadda laga daayo aan la siyaasadeen waxaa kaloo muhiima ciidanka lafdhabartiisu waxa weeyaan waa saraakiisha ciidanka weeyaan waxaan annaga naga goon inaan dhisno ciidanka saraakiishiisa si dib u dhisno iyo inaan wada hadal la galno cid kastoo doonaysa oo soomaaliyeed oo salugsan qaabka waddanka u socda iyo xukunkiisa haddaan u wareego qaybta labaad oo barnaamijkeygoo garsoor ah garsoor madax bannaan baan doonaynaa weli dastuurkii qabyad ahaa lama dhammaynin qabyo qoraal weeyaan annagu waxaan aaminsanahay inaan dastuur kaloo labaad oo dooq siino dadka soomaaliyeed dastuurkaas waa mid hadda waddankeenna waxa ragaadiyey ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waa maalin kasta isqabsada waxaan u baahannahay dastuur kale oo federaala oo aan rabno inay dadka soomaaliyeed marka dambe afti u qaadaan kay doonayaan oo ah madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen taas oo markaa fursad u siinaysa madaxweynuhu inuu ajendihiisii iyo qorshihiisii siyaasadeed fuliyo oo maalin kasta mooshin aana laga keenin dowladda sida hadda dabeecadda aan leenahay oo waddankeena ragaadisay 22 sano ugu dambaysay annagu kuma khasbano laakiin shacbiga soomaaliyeed baa u codayn doona afti doorashada soo socota 1 sano ka hor haddaan u wareego arrinta kobcinta dhaqaalaha waxa weeyaan kalluumaysiga xoolaha aan leenahay iyo beeraha qorshe dheer baan leenahay oo aan rabno ilaa $2 bilyan ee kalluumaysiga inaan keeno oo waxay ku qoran tahay haddaad eegtaan barnaamijka iyaga aan inisiino idinku maaragtay inalii qaybiyey xoolaha sidaasi leeg in kawaano cusub oo casriya laga qalo waddankan xoolihii oo sidooda u dhoofinaya waddamada maaragtay khaliijka carabta lacag 3 bilyan ay naga soo gelaysa supermarketka haddaan geyno xoolahe hilibkeenna oo macduuna oo organic food la yidhaaho iyo ta ugu dambayso beeraha haddii waddankeennan amniga la sugo oo beeraha oo maaragtay la sameeyo warshadihii wax soo saarkii iyo waxaasoo dhan wax ka qaban lahaa ta ugu muhiimsan oo iyaduna muhiimka waxa weeyaan in wax laga qabto arrimaha ku saabsan runtii ku saabsan maaragtay wax loo qaban lahaa bangiga dhexe waa muhiim weeyaan bangigeenna dhexe waxa u baahan yahay waddanka lacag in loo daabaco anigu khabiir waxaan ko PhD-da ku haysta arrimaha dhaqaalaha waxaa naga goon in lacag cusub u daabacno ummadda soomaaliyeed arrinta dimuqraadiyadda waxaa loo baahan yahay waddankeenna in la dhiso xusbiyo siyaasadeed in sharcigii dastuur xusbiyada la sameeyo in guddiga qaranka ee madaxa bannaan la xoojiyo in wadahadallo laga galo somalilan iyada oo lagu salaynayo aan ahayn photo opportunity ama laisku sawiro markay xukuumad kasta dhacasay sawirtaa layidha sawirkii wakhtigii baa la joogaa la geli jiray taasna annagu waxaan aaminsanay inaan si dhab ah aan u bilaabi doono hawsha iyada u bilaabi doono dowlad wanaag waa midda ugu muhiimsan iyadana oo waddankeenna aan aad iyo aad uga ragaadnay waxa aan madax bannaanayn doonaa oo hadda wasaaradda maaliyadda ku guda jira xisaabiyaha guud iibiska ama procurementka iyo ururinta cashuurta hay-ado madax bannaan baan keeni doonaa waxaa kaloo aan bangiga dhexe ka dhigi doonaa bangi dhexe oo madax bannaan oo aan ahayn kaashiyeer dowladdu qof karaaniya u fadhiyo oo dhahaan kaashkaana noogu rid kaashkaanana si maaragtay meel uga dhaceen kaana madax bannaani dhaba baan siin doonaa bangiga dhexe arrinta kaloo muhiimka waa khayraadka waddanka waxaan aaminsannahay dhismaha waddanka lagu dhisayo batroolkan uu leeyahay weeyaan waxaa runtii u dhisaya taana waxay nooga go'an tahay in aan runtii soo saarno hay-adihii loo baahnaa hay-adda maaragtay batroolka ee qaranka inaan samayno iyo wixii kale oo loo baahnaa arrimaha ku saabsan oo ugu dambaysa xildhibaanadiina sharafta leh waxaad ogtihiin waddankeennu maanta marxaladda adag uu ku jiro si kastaba ha noqotay saaad ku timaadeen maanta waxay haysataan fursad aad waddankan ugu badbaadisaan oo u soo gurmataan
waxa weeyaan saad uga warqabtaan 13 dhalinyaro ah baa waddankeena gobonnimadan haysanay midhaan haysanay loo dhaliyay idinku maanta meesha aad fadhidaan waxa aad joogtaan meeshoodii oo kale waddankeenu magacoyaal weeyaan in la xoreeyo u baahan yahay waddankani wuxuu u baahan yahay isbedel doon dhab ah waxaan rajaynaynaa si xurmad leh oo sharaf leh inaga codsanaynaa inaad kalsoonidiisana siisaan si waddankan isbedel doonka dhabta ee u baahan yahay si uu runtii uga mid noqdo dowladaha jira ee waddankan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu